الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ciid mubaarak kula caam wa antum bil khayr muslimiinta dhamaantiin waxaan joognaa magaalada Birmingham caasimada UK. wallahi ma sha Allah maanta aad ayaa looga ciiday muslimiinta dhamaanteed ciidan ciid aad u weyn waaye muslimiintana ku weyn dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak muslimiinta qaalisto waxaan leeyahay inta muuqayga iyo argayga taqaano asxaabta dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan familkeyga xaaskeyga Ifraax bin Xudeen caruurteyda ehelka waalay dhammaan muslimiinta asxaabta ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan ciidan ciideeda nabad ibraaqa Allah noo gaarsiiyo dalkeenana annaga nabada ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeenana nabad noogu soo celiyo ilaahay dalkeenana noogu soo celiyo ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta. I'm Councillor John Clancy, I'm the leader of Birmingham City Council and I'm here in Small Heath Park for a great morning celebration. Birmingham's a great city with 230,000 Muslim Brummies in it and I'm absolutely delighted to be here to participate in this joyous day for loads of Brummie Muslims. I'd like to wish all Muslim Brummies Eid Mubarak. This is a great city. People say unity is strength, actually diversity is strength in this city, and it's what makes Birmingham one of the great world cities. Jack Dromey, the Member of Parliament for Birmingham Erdington. Today is a wonderful event, Eid Mubarak, celebrating the Muslim community in Birmingham and Britain. Also in Birmingham we have the rich diversity of the Hindu community, the Sikh community, we have the Irish, the proud English. I believe in that diversity. We need to celebrate that diversity, and it's all the more important now against the background of a shocking rise in racial violence. I want the traditions of Birmingham to stand together as one, celebrating one another's traditions and diversity. والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dear brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَتَشْكُرُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى مَا هَدَاكُمْ means to complete the fasting of the month of Ramadan and glorify Allah subhanahu wa ta'ala, then thank Him as He
guided us to fast the month of Ramadan. We thank him for giving us the opportunity this year to fast the holy month of Ramadan. We thank him for the unity he helped us to show the whole country today here in Birmingham. We thank him for helping us to serve and help those who are in need around the globe. We thank him for helping us to be here today to celebrate the day of Eid. Eid Mubarak to all of you. Today we celebrate the unity. Today we celebrate the peace. Today we celebrate that we are Muslims and we follow the steps of our dear beloved Prophet. Millions of people around the globe, they celebrate Eid with us today. It is a very strong message of unity for everyone of this world that we, alhamdulillah, celebrate the day of Eid in one day. My dear brothers and sisters in Islam, as we celebrate the day of Eid, we think about those who are less fortunate. We think about those who are in need around the globe. We fasted Ramadan this year, alhamdulillah, and we managed to have a lot of good food to drink when we break our fast. But many people, millions of people around the globe, they fasted because they did not have a choice. And in many countries, they don't find anything to break their fast. Therefore, we need to celebrate, to share with them what Allah subhanahu wa ta'ala has given us and help their future. They have kids like our kids. They want to celebrate Eid like we celebrate. Let us work to serve the whole humanity. Let us help and support all those who are in need. My dear brothers and sisters in Islam, may Allah subhanahu wa ta'ala accept your siyam, your qiyam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us strength to do more peace, more unity, more activities like Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله مقعي وإبراهيم نور عبدي درينكيغا وأنت أنا فرحسن هاي سقاشن كن أوقف أسبوع ماتي مشان أو مسلمين وجالين كلا دونا أو سوماليا أنا وجعلان لين ودنا كإنسان وكلنا أول إيدنا فرحنا تفيقنا فرس إنه ما هتعلنا سبيشال ورينا محمد علي الجامع أو كامريستا ما أنت هذا لو مشان لو فرحي هذا معناه شعورتنا فرحسن تاي دمركي عرورتي رجي هل كان لو ودي إيدي وأمبين باك وين سمول هيت باك وبرمنغهام أنت سكون وقفة سكوي ماتي دتك عدوا فرحسين عرورت ملك وعياران كل عام وأنتم بخير. magacaya xasan cabdilaahi bilo guure waa lahaa waxaan salaamayaa walaalkay familygay oo dadka meel kasta jooga ciid wanaagsan ma leeyahay ciid wanaagsan anigoo ah daawud muudey oo ku nool Birmingham Soomaalida iyo muslimiinta oo dhan ciid wanaagsan ayaan leeyahay kulli caam wa antum bikhair ciid wanaagsan ciideeda bashbash iyo barwaaqo ilaahay noo geeyo Soomaalidana ilaahay isku maxeeyo ما شاء الله مركب وجوه الرئيس مقعي وحسن عبد الرزاق محمود حسن بولس أيامكم قاعدين هاي maaragtay dareenka ciida iyo sida ay u dhacday xaqiiqdii waa maaragtay ciidani waa ciida ugu weyn dhammaan Yurub oo dhan marka la fiiriyo maxaa yeelay meel ma jirto kaliya oo Yurub ku taala oo ay isugu yimaadeen ilaa iyo 90,000 oo qof oo muslimiin ah marka maanta waxaa soo xaadirtay 90,000 oo qof maaragtay qofood oo muslimiin ah oo ciidaasi maanta tukaday marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ah ciid wanaagsan hambaliyada ciida ayaan la wadaagayaa ما شاء الله تبارك الله dareenkayga aad u fiican yahay magacaygan waxa la Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ku magac dheer Daadir marka maanta ma sha Allah meeshaan ku faraxsanahay ciideena oo maaragtay oo muslimiinta dhan oo ka soo qayb gashay magaalooyin kamid ah UK oo Birmingham iskugu imaatay boqolaal oo kun qof in iskugu imaatay caruur oo waayeel dumar ma sha Allah تبارك الله farxadeena aad iyo aad u faraxsanahay maanta waa ciideena oo maaragtay ciideena ugu faraxsan muslimiinta oo meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak insha Allah kullu caam wa antum bikhair. السلام عليكم magacaygu waa Cabdalla Keenan cilmi degan Birmingham dareenkayga ma sha Allah aad u fiican yahay ciidda maanta waxay ahayd mid macna shaairta islaamka Birmingham si aad looga dareemayo boqolkiiba boqol laakiin waxaan ka sii jeclaanayn sidaan maanta inta ugu ciidnay si lamid inaan wadankeeni hooy ugu ciidno ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ciidan ciideeda kale inaan wadankeeni sidaan iyo si lamid si ka fiican baan ugu ciidno oo ilaahay nabad khayr qabtana wadankeeni nooga dhiga si aan ugu wada laaban anaga iyo caruurteeni marka hore magacaaga Abdurrahman Ali Bile adigana إباق كورن عيد مانتا وبيفنت وفي يا سلام اللي ذلك أبوك يا أبو أبهي Okay what you gonna say both together عيد وناكسن عيد وناكسن وما سنت يا
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد مصطفى علي ما أنت وعيد الفطر وحن آد درين كان درين لسوكو بكرماها ما دام المسلمين تبرمهم يسوون أحسن وذ عيدين وأن لسوكو بكرين ولو أنكسي جعلان لهن ودن كاني أنو دلنا سوماليا إن فرحة داس وكلا أن إن شاء الله إلهي إنكيس أن إذا أن كعيد دونا تلنبات وحن آد وسلامية ومد الصوماليات ملكست إيجوان عيدان إن إلهي وفجارسيو برواقي بش النبض ومد الإسلام كان السيدو كلا أيان أيجنا وطويا إلهي إن قلوبته إسكسودو وحن كلو هالكان كسلامية دمان أنت مقلقي موقي تقان قارهان والدين تيدا هو عذر ولا له كل مريم أحمد هذا عبدي كل مال كستو إيجوان ولكن حسن برا مركا أنا مسوكو بكري فملك آذو وين هاي مركا كل عيد وناكسن عيد مبارك عيدنا إلهي هنو قارسيو برواقي بش بسم الله الرحمن الرحيم درنكيغو ما شاء الله وحاوي ماشي وسر ريسي محايا لي ما أنت برمهم وحي مرتقليسي 9,000 oo qofood oo iskugu jira Soomaali iyo maartay Eeshiyaan iyo Muslimiin inay hal meel ku wada ciidaan barxadda weyn ee la yiraahdo Ismaalhid boqolkiiba 70 waxa la dhigi karaa dadka meeshaas ku tukaday Soomaali u badnaayeen annagoo ah Soomaalina aad baan ugu faraxsanahay inaan ciidan aan ka faa'iideysano Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu Ramadaankeenii noogu dhameeyay caafimaad iyo barwaaqo صدقكي بريد أنا نجارسين يعني كلنا مقالة برمهم. عادي عاد ويوحي سد بدنيها مقعي والسعودي عاد نقولت كنا المقالة برمجان باقي الجود كذي أنت قلق هدي لا أنت لن عيد إيداين. يا جعلالة هنا سلامتي هالكن. سبيشال حسلام لما فاميلي كيكا كودورة هو يدي وكنا المقالة ميابليس يو ولا له هيجا يا دوين كيكا أدير magacayga waa Shaadiya ciidan waa ciid fiican oo farax leh dadka muslimiinta dhan waxaan ku dhihi lahaa ciid mubaarak waa dareenkayga aad buu kacsan yahay waa maalin ciida waa maalin mataqaana ummadda muslimiinta meel ay joogtaba ay faraxsan yihiin ciidayaan ma sha Allah aad buu u kacsan yahay mataqaana ummadda muslimiinta Soomaalida maxaa gabagabadii leedahay ummadda muslimiinta meel ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak صفة خاصة وحالي أمد الصومالية ميلا جوكتان بعيد مهارة كل عام وأنتم بخير. أنا مقعيقة أحمد مصطفى علي عمر ما أنت ومالين عيدة كل جين ووضع فرحسنا أمد الصومالية قارهان أمد مسلم كمال والبيجوجان وحان هذا كهذا دكان كجماس مقالة برمنغهام وعاصمة اللواد وودن كيوكي وحال كان كسلام يا هو معان عذر ولا عليه يردن غير كيجا حاس كيجا المهيجا كل وحان ليه عيد وناكسن أمد الصومالية مال والبيجوجان عيد كلنا نواد إبراري بش الله نهو قارسيو